تمر بحالي ما اسكت دكتي يا اسكت دكتي قرية هل مر ما دعوة تابع كوكيني يا هل مر ما اسكت أنا ما بلد بروف أنا هذا حبط اسكت دك لا بحرين أنا قبل اسكت دك أنا وهذا استوش من كسولة ده فهم زي أنا بحكي لنا نوم بدي بحكي لنا نوم بدي هذا وين بقى يصعد استعجل نك والقبحة كعكع والقبحة أنا بتكلم أنا أول بخرج مهني كعكع في ما يصير استنى أنا يجنين جد قلت الجيم والله كمان شو كان هاي بقى ما استعجل حتى هذا حمطان هو كان شيلتين كعكع وأوش هنا هلا دفاخ تجنين استعجل دكتورو دب شيزو سامحنا بتك الله أولين يا ما تقصدين دونو نفل عالية الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خارج ودن مقصدي ذيك جوسنا أدب نساء ولكن على شعب مرة بعض يوم مقلص أن إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنتم كان دون إن شاء الله دليرتي جلاياش ها جرو كنولا يو كبردي سوماليات إمشى خود بتي إلهي هون حدثوا أهلكي أي كتكت أي قرابة دي يوم السوماليات وتحسبنا قدرنا إنا لله وإنا إليه راجعون ودعوا حقيقة نحدين تيدا وضتا لب تيدا وضتا إن إلهي هون حدثت كبراسين حدثنا إلهي كورابيو إن مركب الروحان إيج دونا إن حقا وعيقلنا ونكتر دونا وإنتي عقلينا إن شاء الله وحكلون بالإيج دونا سيو حدان بإذن الله الكريم وتوحني ووح إن قترت هذا إسكاله إن كبراسنا وقت جيجا إنتاكو إيجا إذا ما جوجين كرتو وقت مركو دماغه سببتنا إذا رستاي كرتها مجرتو لكن برشدو وحيابها قار كذي كدكتونا توفي عن تاي حقيقة كوح ذات سكوح جلي عليها هاي aad baan ugu xumaay dhibaato ka dhex dhacday iyo geerida ku timid gabadhaasi allah u naxariisto ehelkeygana ilaahay samariyay baan ka sii ehel baa ilaahay qaraabay lahayd gabadh la soo barbaariyay ahayd inta la soo korinay ahayd daayar bay ahayd sala sheegay inkastoo la yiri gabadha macnaha dareeska xidhan maaha ee waa gabadh cusbeed oo soo beertay meesha ilaahay u naxariisto mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahay isaga naxariista qaniyo furu rahime sala sheegay dhalinyartii way xidhan yihiin oo waxay ku jiraan jeelka sala sheegay inkastoo dadka qaarkii waxyaabo isla dhex marayeen laakiin waxaas waa inta badan dadku barbagaado u badan yihiin been bay u badan yihiin laakiin xaqiiqadu waxa weeye dhalinyartii inay gabadha markay dhibaatadu dhacday ay qaadeen dhakhtarkayga deetna gabadha ay geeriyootay saana saldhig ay ku tageen oo saa loo xiray wixii oo dhan dadkii oo dhan gacanta lagu hayo macnaha wiilkii dhibaatadu ay ka dhacday inay doonto baa u dhacday qadartii ilaahay baa dhacday inta ay la xidho bal hadda waxaan eegi doonaa bar horta say wuxuu dhaceen insha allah taariikhdu tahay bishii Febraayo 2021 waxaan halkan saxaafadda aan rabaa inaan kula hadlo ama rabaa inaan bixin kooban aan ka siiyo dhacdo maanta ka dhacday magaalada Garowe oo ay ku dhimatay gabar magaceeda la yiraahdo Anisa Cabdicasiis Ciid geeridaas oo ah xanuun badan marka hore waxaan rabaa inaan tacsiil la wadaago eheladii iyo qaraabadii iyo waalidiintii iyo dadka ay ka geeriyootay waxaan leeyahay inaan la waynaan la raajiban ilaahay samirina naga siiyo ilaahay naxariistii janna ilaahay ka waraabiyo waxaan rabaa inaan xogaa iftiimiyo kiisku siduu u dhacay kiiskaasi gabadhaas wax ku dhacday xabad baastoodeed oo sida la sheegay ay ka dhacday wiil ay wada socdeen oo magaciisa la yiraahdo Nadiir Bire Ali dadkaasi dhalinyarada waxay la socdeen gaari waana wada socdeen sida muuqata hab nabadgelyo ay markaa ku safraayeen magaalada dhexdeeda Garowe dad dhalinyaro oo saxaafadda iyo filimaan iyo sidii maaragtay baraha bulshada waxyaabaha lagu wacyigeliyo ka shaqeeya bay ahaayeen kadibna waxa weeye dhowr qof ay ahaayeen afar qof ay ahaayeen laba gabdhood iyo waxa la socday laba wiil oo kale sidaa darteed dadkii oo dhan uu ka mid yahay ninkii xabaddu ay ka dhacday Nadiir Bire Ali waxaa gacanta ku haya booliiska iyo gaariga ay wateen xabaddii ay baastooda ka dhacday dhammaan qalabkii oo dhan waana la baarayaa waxay ku jirtaa baaris insha allah waqti aan dheerayn waxaan soo bandhigi doonaa baaristooda
mar labaad iyo mar saddexaad inaa lillahi wa inna ilaahi raajicuun ilaahay gabadhaa u naxariisto xaqiiqdu waa intaa booliiska sheegeen dhalinyartu way wada socdeen dhibaataduna dhexdooday ka dhacday wejigay doontaba ha u dhacdee dadku laakiin say xaqiiqadu sheegeen wiilka gabadha inay xabaddu ka fakatay saanay kaga dhacday gabadha allaha u naxariisto ummadda soomaaliyeed iyo waalidkeyga iyo ehelkeyga ilaahay samir iyo baan ka siiyo horta saasay wuxuu dhaceen waxa kale lasii raaraadiyaa waxaan umalayaa wax saaweyn maaha marka insha allah dhalinyartiina waa la xidhay xitaa ninkii baaskoolada iska lahaa waa lasoo xidhay intuba abnigii gacanta ugu jiraan hay-adaha abniga wixii intaa kasoo baxa waxaan ka suganaa waxay kasoo saaraan laamaha dowladda ee gacanta ku haysta waxa in laga sii hordhaco maxay baasasaan iyo waxaa kale wax weyn maaha wax laga sii sheekeeyana maaha muhiimku waxa weeye intaasi dadkii in la hayo dhibtiina dhexdooda ka dhacday gabadhiina ay dhimatay allah u naxariisto naxariis janna allah ka waraabi bal haddaba hanu soo noqono waxyaabahan bulshadeenanay horta xaqiiqatan marka horeba qalad bay ahayd in qoriya baaskoolad lagu matalo macnaha dadkeenu filmaanta malahay daawanayaan iyo waxyaabahan iyo guryahan dumin iyo dhulkan burburaya unbay u haystaan wax walba in hal noolnool lagu matalo waxna waa indha sarcad la sameeyey waa been wax saliya raatoonana maaha xaqiiqatan markay xitaa bulshadu arkaan laamaha amnigu markay arkaan dad waxyaabahan kale ku matalaya in la hubiyo wey waxaan marunbaa sooabamut iyadoo noolnool bay matalayaan oo qorigii caadiyaystaan iyo baaskooladii caadiya si aynay bulshadeenna inta ka hadhay dhibaato uga dhacan waxaan wax uga barano dhibaatadan dhacday hadda ayna wax ka barana weeye oo macnaha aanay waxyaabahan kale lagu matalay nimgu waxaad arkasaan horta bulshadeenu asalkeennaba khatartay ku ciyaaraan waxa khatarta la idhaahdo ayaan ku ciyaarnaa marka waxaan u baahanaa inaan waxaa iska wacyigelino xaqiiqatan laga fogaado nimgu waxaad arkasa social media waad daawanaysaa waxbaasaa ordaya mararka qaarkood waxaad arkaysaa baraan la sameynayo habal la sameeyo baraanku waa laba mid waa wax laisla ogyahay midna waa wax qofka laga qariyo qaarkood baa dadka laga qariyaa waxna la sameeya waxyaabo khatara qof baa waxaa loogu darayaa biyo ayaa kiniin loogu daraya waxaa laga yaaba qofkaasi inuu iska yimaado guriga biyihii kiniin kala u cabo kiniinkaasi qofkan lama yaqaan caafimaadkiisa guud siduu yahay kiniinkani bilee wax xanuun jirkiisa ku jira oo khatar ku yahay waxba dhici karta inuu ku dhinto waxyaaba noocaas oo fara badan markasta waad arkaysaa xabad baa macnaha lagu ciyaaraya qori baa lagu ciyaaraya baaskoolad baa lagu ciyaaraya xaqiiqatan ciyaal baan dad waaweyn baan nahay waynaan ummadeenna badbaadinaa oon ka fogaanaa waxyaabihii dhibaato u geysanay intaan is leenahay dadka bulshadana wacyigelin sameeya ayaan nafa bili-aadmi galaafanaynaa xaqiiqatan wiilashaasi anuu maaha ujeedkaygu inamada kama hadlayo laakiin bulshada soomaalida dhan baan ka hadlayaa waynaan ka fogaanaa wixii bulshadeenna khatarku oo dhan qof kasta oo social media ku jira ama macnaan ku dhaha dadka kumantii ka shaqeeya ama dee macnaa dadka qosliya ama riwaayadaha soo dhiga ama bulshada madadaaliya waa inay ka fogaadaan waxyaabaha khatarta ah ee macnaha naftooda khatar ku ah iyo bulshadaba inteeda kale umaynaan soo gelin inaan waxyaabo kale iyo burbagaado kale iyo wax kale kasii sheekayno qorshaheenu wuxuu ahaa intaayna wacyigelinta iyo sidaasi gabadhan allah u naxariisto xaqiiqadan waa intaasi ilaahayna bulshadeena khayrka ha ku sugo mar labaad iyo mar saddexaad gabadha wax leenahay inaa lilah wa inna ilaahi raajicuun rabbigii khalqay jannada firdowsa ka waraabiyo ehelgii iyo qaraabada ka tagtana sabina ka siibiyo bulshadeenuna insha allah waxaan rajeynaa inay ka digtoonaato waxyaaba noocaas oo kala walaalkiin cali jaamac asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakatu